بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan walaalayga sharafta leh kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha qoyska oo aan maanta uga hadli doono qayb ka mid ah ahkaamta furitaanka. Ilaahay wuxuu jideeyay guur oo ujeedkiisu yahay isu soo dhawaasho iyo nolol raaxo leh. haddii taas suuragal noqon weyso wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jideeyay in labada qof ay kala tagaan marba haddii la isla fahmi waayay noloshii macaaneyd ee raaxada lahayd. dad badan ayaa ku wareersan ahkaamta furitaanka iyo qaabka la isu furo, saas darteed su'aalo aad u fara badan culimada weydiiya. markii aan qiimeeyay arrimaha noocaas oo kale ah ayaa waxaan jecelaystay in aan suubiyo barnaamij aad iyo aad kaaga saacidi doona kuna sahli doona inaad fikir guud ka qaadatid furitaanka. taasi macnaheeda ma ahan marka aad barnaamijkan daawatid inaad wax walba oo kula soo darsa Ilaahay furitaan iyo dhibaato haydinka haye aad ku salaysan barnaamijkan. waxaa lagama maarmaan ah inaad la xiriirtaan culimada iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee talada leh oo arrimaha noocan oo kale ah ku xeel dheer. furitaanka walaalayaal waa labo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay at-talaaqu marratan. qaybta koobaad waxa weeye qofka ama ninka ragga ah waxa loo ogol yahay marka uu xaaskiisa furo inuu soo ceshto. wuxuu soo ceshan karaa intay ciddada ku jirto iyo markay ciddada ka baxdo. intay ciddada ku jirto hadduu soo ceshto isdaji wax walba waan kuu sharaxi doonaa, inkastoo erayada badankood ay dadka fahmayaan. intay ciddada ku jirto wuxuu soo ceshanayaa nikaax la'aan iyo meher la'aan. ciddada hadday dhammaato waxaa laga rabaa meher cusub iyo nikaax cusub ayaa laga rabaa iyo laba marqaati ah iyo inuu reerkoodii ka doono uu mataqaanaa dib gabadha u doono. qaybta labaad waa qaybta la kala tegayo. mar dalqadii saddexaad hadday ka dhacdo dib dambe la iskugu soo laaban maayo. furitaanka waa laba nooc ayuu dhacaa. mid waa sariix baa la yidhaahdaa, waa in qofka caddeeya uu afka ka yidhaahdaa waad iga furan tahay. midna waxaa la yidhahdaa kinaaya ayaa la yidhaahdaa, taasi oo u baahan in niyad iyo ulakac la subiyo, qasdi inuu ujeedo qofka oo la yimaado. dib ayaanu ka sheegi doonaa. furitaanka waxa xaq u leh ninka ayaa xaq u leh. waxaase u bannaan inuu gabadha dalqadaha ku wareejiyo oo yidhaahdo dalqadahaadi sooma jeedid waa kuwaana xilligaa rabteed isfur. gabar baa isfuraysa, gabdhahaadi waa isfuri karaan, waana u bannaan tahay ninka inuu dalqadiisa ku wareejiyo gabadha. laakiin talow ninkaas waa kee? koley nin caqli leh xilihiis iskama wareejiyeen. furitaanku waa laba nooc. mid sunni ah oo sax ah oo xalaal ah iyo mid bidca ah oo xaaraan ah oo aan bannaanayn in la suubiyo. kan saxda ah waa kan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baneeyey oo ah inuu gabadha furo ayadoo dhiig ka qubaysatay isla markaana uusan u galmoonin. gabadhii dhiig bay ka meeratay asagana uma galmoonin, hal dalqa ayaa iga furanta ayuu yiraahday. kaasi waa dalaaq xalaal ah oo bannaan. hadday tahay gabar aan dhiig ku dhicin oo ka weynaatay ama aaba gaarinba wuxuu furi karaa xilliga uu doono ayuu furaya. sidoo kale wuxuu furi karaa marka uu hubsado inay uur qaaday. kaba soo qaado kale uur bay saas u qaaday uu hubsaday markaasna uu furi karaa. furitaanka bidciga muxuu yahay haddaba? waa kan cagsigiisa. waa kow inuu furo ayadoo dhiig qabta. gabadh dhiig qabta in la furo xaaraan weeye, mana bannaana. laakiin ma dhici doona iyo ma dhici doono dib ayaanu ka sheegi doonaa. inuu furo ayadoo dhiig ka qubaysatay isla markaana uu galmoodo. inuu dalqadaha isu raaciyo yiraahdo 3 iyo 2 iyo waxbaad iga furantahay uu hal mar isu wada raaciyo. haddaba su'aalaha ugu badan ee dadku mataqaanaa furitaanka ka weydiiyaan waxay tahay furitaanka marqaati ma loo shardiyaa? ma inuu marqaati joogaa marka gabadha la furayo? maya, looma shardiyo marqaati. in gabadha xataa la ogeysiiyo ay og tahay in la furay shardi ma ahan. ninka go'aan buu kaligiis ka soo gaari karaa, wuxuu dhihi karaa waan ku furay, markaas ayuu sheegi karaa wuxuu leeyahay waan ku furay. fariin message ama qoraal ama whatsapp ama waxaan hadda maanta la isticmaalo ma la isku furi karaa oo furitaanka ku dhacaya? waa la isku furi karaa, waana qaybta la yiraahdo kinaaya ayaa la yiraahdaa. laakiin waxa loo baahan yahay qasdi ujeedo. sidoo kale waxaa fiican in la iska hubiyo. rag waxaa la sheegay in mobilada inta laga qaaday dumarkoodii lagu furay, meeshaasna fitan ka dhacday. marka iska hubiya mobiladiina inaan la isticmaalin oo mataqaanaa xaasaskiina laydinka furin. haddii ninkii uu inkiro, badanaa wax dhacdo labada qof oo isqabta marka ay murmaan ay hadalka isku badiyaan inuu ninka yiraahdo waan ku furay, hadhowtii uu inkiro yiraahdo aniga ma oranin. marka yaa la maqlaya? maxaa la sameynaya? haddii uu ninka inkiro asaga ayaa la maqlaya. laakiin hadday marqaati jiraan oo ay ku cadeeyaan inay mataqaanaa uu arrintaas ku dhawaaqay, markaasi warkiisa waxba kama jiraan, dalqadiina way dhacaysaa. hadduu been sheegayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa la xisaabtamaya.
su-aasha kale waxay tahay gabadha haddii 3 hal mar lagu furo ama 2 lagu furo maxaa la sameynaya maxaase laga soo qaadaya mas'aladan waa isku khilaafay waxaana fiican in loo eego dadka xilliga ay nool yihiin iyo furitaanka sida ay u sahladaan maanta oo kale haddii casriga nool lahay badan tahay in gabdhaha 3 lagu furo nin kastoo yiraahdo 3 ay ga furan tahay ay arintaas caadi iska noqoto la ilaalin waayo mataqaana ahkaamtii iyo guurkii iyo guriga la ilaalin waayo ragga waa lagu ciqaabaya waxa la leeyahay 3 waa kaaga dhamaatay gabadhana ma ku soo laaban kartay ilaa nin kale ay guursato si mataqaana loo kor loogu qaado ilaahay aayaadkiisa oo aan loogu jeesjeesin oo aan loogu ciyaarin haddii ay tahay mar iyo dhif wax dhaco waxa laga soo qaadayaa hal ayaa laga soo qaadayaa walow culimada ay qabaanba in mar walba 3 hadii lagu furo ama 2 lagu furo la israaciyo hal dalqad laga soo qaadayo laakiin waxa fiican in la fiiriyo siyaasa sharciya wax la yiraahdo in la fiiriyo ayaa fiican oo mataqaana la isku dheelitiro haddii la furo iyadoo dhiig qabto furiinkaas ma dhacaya arintaasna culimada way isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin uu dhacaya sida culimada u badan yihiin ayagoo sheegay inaysan banaanayn in la furo laakiin uu dhacaya ayay leeyihiin maadaama ay arintaas dhacday culimada qaarna waxay yiraahdeen arintaas ma dhacayso oo gabadha dhiig qabta hadii la furo waa bidci saxna ma ahan waxaana lagu furay wuxuusan ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka ahayn waxaadna moodaa culimadaas inay ayaga naftirkooda aad iyo aad u xoog badan yihiin gabadha ayadoo uur leh ma la furi karaa haa waa bannaan tahay waa la furi karaa gabadha ayadoo uur leh muddada ciddada waxaa la yidhahdaa gabadha marka la furo waxa ay tirsato haddii meher un dhacay uusan u galmoonin ama la kaliyoonin wax ciddaa ma lahan gabadha haddii maalan waxaa dhacay in telefoon la iskugu meheriyey ama ay isku magaalo joogaan laakiin aysan is arkin isuna galmoonin meherkiina dhacay hadduu furo gabadhaas wax ciddaa ma tirsanayso markuu saa u furaba nin kale horay way ka guursan kartaa haddii mataqaanaa uur leedahay waa ilaa inta ay ka dhalayso ha dheeraado uurka ama ha gaabnaado haddii ayadoo saas uur u qaaday oo uurkii isbuuci ugu horey ku jirto uu furo 9 bilood ama ilaa inta ay ka dhalayso ayay ciddadeeda ahaanaysaa maalinkay dhasho waa saas ayadoo 2 maalin foosha uga hartay hadduu furo markay saa u dhasho way ciddo baxday way ayadana hadday tahay mid dhiig hesha hadday gabar weyn tahay oo dhiigii ka guuray 3 bilood ayay xisaabsanaysaa ayadana nin cabsan hadduu furo gabar dalqadahaas ma dhacaysaa culimmada waa isku khilaafeen ninka sarkhaanka ah ee cabsan qaar baa ku tegay inay dhacayso hadduu wax furo maxaa yeelay caqligiisa inuu tago waxa sabab u ahaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caasiyo khamri ayuu cabay oo la kacayo arrintaa u suubiyey markaa qof cudurdaar leh ma ahan dalqadiisana way dhacaysaa culimmadana qaar waxay yidhaahdeen qofkan hadduu sarkhaan yahay oo caqligiisa uu tegay dalqadiisa ma dhacayso halkan waxaa loo baahan yahay in ayadana la isticmaalo siyaasa sharciya haddii rag badan ay khamrida oo xaaraan ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xaaraantimeeyey ay cabitaankooda badsadaan gabdhihiina ay ku ciyaaraan oo ay mar walba yidhaahdaan waa cabsanaa warkooda waxba laga soo qaadi maayo sidoo kale dadka khamrida cabo waa 2 qaybood qayb tal noqota oo waxa ay ku hadlayaan iyo waxay sheegeen aan aqoonin iyo qayb normaal iska ah oo caqligooda joogo oo xisaabtamaya oo khamrida markuu iibsanay yaqaano oo gurigii soo galay oo furihii yaqaano oo wax walba de maskaxdiisa ay joogto laakiin xogaa khamri ku jirto kaas dalqadiisa asagana way dhacaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inta balwada leh ee khamrida cabta inuu ka hagaajiyo waxaa ku soo hartay haddii 3 dalqadood dhamaadaan oo ninkii iyo gabadhii ay u kala dhamaato maxaa xal ah xalka kaliya waxa weeye horta labadaas qof iskuma soo laaban karaan xaaraan ayay kala yihiin wixii markaa ka bilowda waxaa soo haray gabadha inay iskeed nin kale u guursato iskeed usoo kala tagaan kadib hadday isdamcaan oo isguursan karaan meher cusub iyo nikaax cusub laakiin lama ogola in khiyaano la suubiyo oo jid kale lasoo maro isla markaana marmarsiyo looga dhigto in uu qof saaxiibka ah kuu soo xalaalay isoo xalaalay ayaa la yidhahdaa arrintaas waa arrin xaaraan ah oo maqtaca nabiga calayhi salaatu wasalaam uu xarimay wuuna nacladay dadka saas suubiya fasaq ayaa kuu soo haray gabdho badan waxay weydiiyaan sheekhow ninkii 2 sano waa iga maqan yahay sheekhow ma isfasaqi kara walaal isfasaqaada fatwo ma ahan sheekh ku fatwoon kara isfasaqaada ma jiro waa inaad maxkamad martaa waa inaad qaali u tagtaa waa in layna kala saaraa waa inay arrintaas galaan dad adigana ku yaqaan ninkana ku yaqaan isla markaana dacwadiina oogi kara laakiin sheekh kaa maqan
iyo wadaad midna toona fasaqaad kuma fatwoon karo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu furitaan ka yareeyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala lamaanaha isjecel isu wanaajiyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ka qabta dhibaatada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.